السلام عليكم. جزيرة هايتي waxay dhacdaa bartamaha qaaradda Ameerikada Waqooyi waxayna u dhowdahay badda Kariibiyaanka waana dowlad ay dadkeeda ku nool yihiin saboolnimo iyo faqri aad u sareeyo waana dal dadka ku nool ay yihiin addoomo laga keenay Afrika intii ay jirtay ka ganacsiga addoomaysiga qarnigii 17aad waxayna ku jirtaa shanta dowladood ee ugu fudud badan caalamka sida ay soo wariyaan ku soo dhawaada barnaamijkeena sahanka dal oo maanta uga hadli doona jasiiradda Haiti. magaceeda rasmiga waa Haiti waxaana loola jeedaa dhulka buuraha dhaadheer sababta loo dhahay sidaasna waa ayadoo dhulkeeda 75% oo yahay buuraley ama 4 meelood 3 kamida waa buuro sida awgeed ayaa loogu bixiyay Haiti caasimadda wadanka waa Port-au-Prince magaalooyinka ugu muhiimsan waxaa kamid ah Kifaton iyo Brocas. Haiti waa dalka kaliya ee ku yaal Ameerika kaas oo lagu tiriyo inuu yahay wadamada ugu horumarka adduunka taasi oo loo sababeeyo dhowr shay oo ay ugu horeyso dhaqaalaha wadanka oo daciif ah oo ay wehelisay xaalad siyaasadeed oo aan deganayn una sababa wadanka oo soo maray dhowr madaxweyneyaal oo diktaatoori ah sida madaxweynihii Francois Dovilla kaas oo dalka u horseeday burbur dhaqaale waxaa kaloo la mid ahay asiga wiilkiisii oo xilka ugu dambeeyay Baby Doc oo xukunka hayay ilaa 1986 waxaa kaloo loo sameeyaa kacdoono looga soo horjeeday madaxdaas sida kacdoonkii dhacay 2002 waxaana looga soo horjeeday wadaad ay ku magacaabaan Aristide oo marka ka noqday madaxweyne dalkaas kadib Aristide waa uu iskaga baxay wadanka laakiin dadkii asiga taageersanaa ayaa sii waday rabshadihii ilaa markii dambe ay soo faragelisay qaramada midoobay sanadkii 2004 sidoo kale 2008 waxaa kale oo dhacay kacdoono kale kuwaas oo ka dhashay sicir bararka sii siyaaday iyo qiimaha raashinka daruuriga oo kor u kacay iyo deemaha wadanka lagu leeyahay oo aqliga qaadan karin taasi oo inteeda badan deemiyay dowladda Faransiiska markii ay qaadinaysay xornimada waana qayb kamid ah waxyaabaha cuuriyaamiyay wadamada soo koraya sida wadankeena kale ayadoo sanad walba deemahaas korsaar lagu sameynayo kadib markaad bixin weyso deemahaas ay kugu qasbayso wax badan oo dhib kugu ah si aad iskaga gudo waana mid keentay in Faransiiska ugu hanjabo jasiiradan haddii bixin weyso deemahaas uu la wareegayo waxaa kale oo loo sababeeyaa wadanka oo ku dhufteen dhowr dhul gariir waxaana ugu weynaa dhul gariirkii ka dhacay sanadkii markuu ahaa 2010 bishii December waxaana cabirkiisa lagu sheegay inuu gaaray ilaa 7 darajo kaas oo sababay burbur aad u fara badan iyo dhimasho aan caadi ahayn waxaana dadka ku dhintay la gaarsiiyay ilaa 200 oo kun oo qofood waxa uuna ka dhacay meel caasimada u jirta 25 kiiloomitir dhanka koonfureed iyo cudurro faafo oo ka dilaacay wadankaas culaysyadaas ayaa u diiday in jasiiradda ay sameyso wax horumar ah oo la taaban karo jasiiradda waxaa markii hore deganaa dadka asaliga ah ee Tainoka dhawaaq inuu khaldiyaha waa macquul kuwaas oo ka yimid koonfurta Ameerika dadkii ugu horeeyay ee reer Yurubna waxay yimaadeen 5 December 1492 intii lagu jiray safarkii ugu horeeyay ee Christopher Columbus ninkan oo markii hore rumaysnaa inuu helay India iyo Shiinaha ayaa aasaasay degmadii ugu horeysay Yurub ee Ameerika Navida oo hadda ah xeebta waqooyi bari ee Haiti jasiiradda waxaa sheegtay markii hore Spain taasi oo loogu magac daray La Spinola taas oo ka samaysantay qayb kamid ah boqortooyadii Isbaanishka ilaa horaantii qarnigii 17aad si kastaba ha ahaatee sheegashooyinkaas iyo degsiimooyinkaas Faransiiska waxay u horseeday in qaybta galbeed ee jasiiradda lagu wareejiyay sanadkii 1697 kaas oo markii dambe loo bixiyay Santo Domingo gumeysiyashii Faransiiska waxay sameeyeen beero qasabka sonkorta ah oo aad u faa'iido badan oo ay ka shaqeynayeen tiro badan oo addoomo ah lagana keenay Afrika jasiiradda dadku nool waxay gaarayaan ilaa 10 milyan 9 kamid ah 10 kaas waxaa lagu sheegay inay yihiin dadkii lagu keenay addoonnimada ee Afrika masaaxadda ay ku fadhiso balac ahaana waa 27,750 kiiloomitir laba jibaaran waxayna hal xad la leedahay jamhuuriyadda
Dominican oo keliya. Inta kale waxaa ka xigta badda Caribbean-ka. Haddaa wax yar kaaga sheego Caribbean-ka waa bad waxayna ku taallaa bartamaha Amerika dhinaca galbeed ee badweynta Atlantic-da, waxayna ka mid tahay badaha ugu weyn caalamka, waxayna gaaraysaa ballac ahaan 2,754 kiiloomitir laba jibaaran, waxayna leedahay biyo siman, waxayna ka tirsan tahay badweynta Atlantic-da. Dhanka koonfureed waxaa ka xiga koonfurta Amerika, galbeedna waxaa ka xiga bartamaha Amerika, dhinaca waqooyi waxaa ka xiga xuduud ay kala leedahay jasiiradaha Antilles iyo kuwo kale oo hoos imaada jasiirada sida Hispaniola iyo Puerto Rico iyo Cuba. Sanadkii 1790 jasiirada waxaa ka dhacay kacdoono rabshado wato iyo dagaalo oo ka dhan ahay gumeysigii Faransiiska, waxaana hogaaminayay kacdoonkaas nin adoon ahaa. Kadib 12 sano oo colaad ahayd waxaa looga adkaaday Faransiiska. Kadib kacdoonkaas jasiirada waxay xornimadeeda ka iibsatay Faransiiska adduun lacageed oo dhan 17 milyan oo euro sanadkii markuu ahay 1804, waxayna ku dhawaaqday inay tahay dowlad dimuqraadiyadeed ah. Carruurta ku nool ayaa la sheegaa jasiiradan in 7.6% ay dhintaan inta ay gaarin da'da 5 sano, waxaana loo sameeyaa dhimashadaas ayagoo san helin carruurtaas caafimaad saxa iyo daaweyn wanaagsan, iyo meelaha qaar oo ay ka jirto baahi daran oo sababta in carruurtaas geerida ay usoo dedegto. Jasiiradan luqadda rasmiga ah ee looga hadlo waddanka ayaa ah luqadda Faransiiska iyo luqadda waddankaas Creole. Diinta ay haystaan waa Masiixi. Mar ay samaysay Qaramada Midoobay baaritaan ayay ku sheegtay in dadka ku nool ay ka tirsan yihiin Roman Catholic 54%. Si kastaba ha ahaatee waxa ay isugu jiraan Masiixiyiin iyo Fatool oo Protestant iyo in yar oo Islaam ah. Dadka Muslimiinta ah ee ku nool waddankan oo ah dad aad u yar ayaa ku nool intooda badan deegaanka Naiya, waxaana sii siyaadayay dadka soo galaya Islaamka horaantii 2010 markii uu dhacay dhul gariirkii weynaa, taasi oo dhalisay in ay usoo gurmadaan dhowr majmuuc ama dhowr hay-adood oo Islaami ah sida ay ku waramayso haweeneydan. Dhul gariirkii kadib muslimiinta ayaa ka imaaday meel kasta si ay noo caawiyaan, sida Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska iyo Belgiumka. Qaar badan oo anaka naga mid ah ayaan islaamay. Haddaan u imaano dhaqankooda waxaa ka mid ah in ay booqdaan meelaha ay ku cibaadaystaan, iyo midda kale oo la yaabka leh ayaa ah in ay isku diraan doorada ama meelaha qaar sida looga yaqaano digaagada. Yacni waxaa lagu tartamayaa dagaalka dooradaas, waxayna siiyaan basbaas iyo wadno ayagoo markaas dhahayo waxay ku noqonaysaa mid geesi awoodna leh. Haddaan u imaano dakhliga waddanka soo gala intiisa badan wax uu ku tiirsan yahay beeraha, siiba qasabka, sokorta iyo bunka. Waxaa soo raaco warshada dharka soo saarto, waxaana lagu qiyaasaa dhaqaalaha soo gala sanadkii inuu gaarayo ilaa 300 milyan oo dollar. Cimiladiisa waxay isugu jirtaa kuleel iyo qabow xilliyada June iyo November. Dadka waxay fishaan duufaano kuleel iyo roob xooggan wato. Mararka qaarna waxaa ka dhaca dhul gariiryo jasiiradan. Waxaa ku yar isticmaalka internetka iyo isticmaalka teknolojiyada waaweynka. Waxaa kaliya oo isticmaala dadka shaqeeya iyo dadka kista haysta ama kasto lacagta haysta. Waan jeclahay in aad wax badan oo aadan ogeyn ka ogaatay jasiirada Haiti. Waxaa inoo balan next video caad leh.